munaasabad soo dhaweyn ah oo loo qabtay ururka dhalinyarada midnimo oo ka dhisan magaalada Laascaanood oo ku soo biiray xisbiga kulmiye ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir dowlaha beeraha Cabdiwaaxid Cabdiqaadir mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Sool maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo waxgaradka ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta ururka dhalinyarada midnimo oo shaaciyay inay ku biireen xisbiga kulmiye lana garab taagan yihiin heel iyo hooba sidoo kale waxaa hadalka kuna hadlaysa afka gobolka Sool iyo nawaaxigiisaba waxaanu halkan ka cadeynaynaa annaga oo ah 150 inaanu ku biirnay xisbi maxaafidka kulmiye xisbiga kulmiye aad iyo aad baan u salaamayaa waana soo dhaweynayaa annagu waxaanu hayn bulshada ku dhaqan gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood waxaanu ka tirsanayn ururadii inta badan soo shaqeynayay iminka waxaan ku soo wareegnay xisbiga kulmiye runtii waxaa farxad noo ah annagoo dhalinyartii gobolka gaar ahaan dhalinyarta ka midowday ururka midnimo inaanu ku soo biirno xisbiga muxaafadka ee kulmiye markay eegeen siyaasadda dalka ka jirta xisbiyada dalka ka jira waxay go'aansadeen markii ay tala isugu noqnoqdeen shirar badan ay galeen waxay go'aansadeen xisbiga kaliya ee dalka wax u qabtay ee dadka wax u qabtay ee gaar ahaan gobolkeena Sool wax u qabtay inuu yahay xisbiga xisbi xaakimka kulmiye ee hadeerna talada dalka isku daba maray mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye maamulka heer gobol iyo heer degmo mas'uuliyiin ka soo qayb galay ugu dambeyntii waxaa ka hadlay wasiir dowlaha beeraha Cabdiwaaxid Cabdiqaadir ayaa soo dhaweeyay ururka dhalinyarada midnimo oo ku soo biiray xisbiga soo taageersino soo kaarkii joogno waynu u simanahay xisbiga kulmiye la idinkama laha waa xisbigiini aad doorateen ku soo biirteen waana idinku soo dhaweynaynaa waxaa kale oo ay intaa ii dheer dhalinyaradu waa xubnaha nolosha aan isdhegaysano dhalinyaradu waa xubnaha soo marnay waxaynu ku jirnaa marxaladihii ugu wacnaa ama casrigii ugu qaalisanaa ee ay dhalinyaro hesho iyadoo maanta talada dalka 25% iyadoo gacanta ku haysa ayna ka tirsan tahay dawladda dhexe iyo maamulada gobolada degmooyinka iyo dhammaan meel kasta oo laga hago mansabka siyaasadeed ee dalka taana waxaa sababay oo sababteeda iska leh waa xisbi xaakimka kulmiye iyo hoggaankiisa iyo madaxweynihiisa xisbiga kulmiye markii uu guuleystay dhalinyaradii soo saartay bartii kagama tagin abaalkii buu u celiyay wuxuu ka qayb galiyay golayaashii qaranka oo dhan inay ka mid noqdaan haday tahay golaha wasiirada haday tahay golayaasha deegaanka haday tahay shaqadii kale ee dawladda loo hayay qaybaheedii kala duwanaa oo dhan inay cududooda iyo ciidankoodaba ku xoojiyaan xisbiga kulmiye cod kala siiyaan annana aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay dhalinyarta intaa leeg ee cududdaa leh ee tiradaa leeg ee intaasoo ka kooban aqoon-yahan iyo waxgarad iyo dhalinyartii magaalada ah iyo waxgaradkii inay nagu soo biiraan aad baan u soo dhaweynay waana tacaawo keentay halkan inaynu ku dabaaldegno innagoo midaysan oo aan ururka midnimada iyo xisbiga kulmiye ay ku midoobeen aynuna wada noqonnay xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye aad iyo aad baad mahadsantihiin فرحان محمد عيديد TV عالمي Ariel مقالة Laascaanood